Somaliland xubnaha golaha wasiirada xubnaha golayaasha qaranka labada gole madaxda shirkadaha baananka ganacsatada dhammaan marti sharafta mudan iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baynu ugu faraxsanahay inaynu ka soo qayb galno daahfurka banka IBS oo ah bankigii shanaad oo private ah oo Somaliland ka hawlgala waana bankigii lixaad ee laysan ka haysta banka dhexe jamhuuriyadda Somaliland ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ka rajaynaynaa inuu bankiga barakeeyo kana dhigo mid door weyn ka qaata horumarka jamhuuriyadda Somaliland madaxda bankana waynu uga mahad celinaynaa muddada gaaban ay diyaargarowgiisa iyo shaqadiisa ay ku jireen ay haddana inoo soo bandhigeen maanta bay inoo sheegeen adeegyada aadka iyo aadka lagu baahan yahay ee ay gudbaba hirgeliyeen runtii bangiyadu sida laga dhawaajiyey waa horumarka qaran kasta haddaan banki jirin horumar ma jirayo anigoo runtii bangiyada hore u jirayna uga mahad celinaya doorka muhiimka ah ay kaga jiraan horumarka qaranka iyadoo bangiyadeenu cimrigooduba 10 sano yahay oo bangigii ugu horreeyey aanu wax 10 sano aan aad ugu weynayn baa uu furitaankiisu ahaa haddana halkay soo gaarsiiyeen maanta maalgashiga ay sameeyaan iyo horumarka ay kaga jiraan qaranka waa meel aad iyo aad u sarreysa IBS baan noo rajaynaya inuu isaguna door muhiima ka qaato runtii qodobkan xoojinaya waxa weeye hadalka hore loo yidhi maxaa ka duwaneed haysa weeye IBS maxaa ka duwan ee bangiyadii hore ayna qaban ee bulshada usoo bandhigaysaa wax badan way inoo sheegeen insha allah waxaan rajaynaynaa madaxdu sida ay sheegtay bankigu inay kaga dhabayn doonaan annaga banki dhexe ahaan annagoo runtii xukuumadda uga mas-uula bangiyada iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed waxaanu soo dhaweynaynaa banki kasta oo doonaya dalkan inuu maalgashado inuu xarumo ku yeesho hadduu yahay mid muwaadiniintu ay maalgelinayaan iyo hadduu yahay mid caalamiaba annagu waa soo dhaweynaynaa annagoo runtii ogsoon baahida aynu u qabno bangiyada iyo maalgashi nasiib wanaag waxaa iminka inoo diyaar ah inta badan bulshadu tabasho lama waayayo wax dhiman lama waayayo nolosha oo dhan baa qabyo ah maalinba waxbaa la buuxinayaa kolley bulshadu waxbay tabaysaa aad baa looga dhawaajiyey in la yidhi bangiyada ha la isticmaalo oo bulshada bangiyada ha isticmaalaan ganacsatadu bangiyada ha isticmaasho waxa weeye bangiyadana waxaa laga doonaya inay u fududeeyaan bulshada inay bangiyada yimaadaan oo ay lacagta dhigtaan oo ay lacag ka amaahdaan oo ay aqoontooda iyo ciddii matalan dhalinyarada laga dhawaajiyey fikrad haysa inay maalgeliyaan ay u fududeeyaan bangiyadaan ka codsanana annaga bangi dhexe ahaan labada bangiya iska soo horjeedaan waa inaan akoonada aan ku leeyahay aan isticmaali karaa labadaba marka IBS bank aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa inay diyaar yihiin bangiyada kalena runtii horey noogala qayb qaateen diyaarinta regulationkii lagu maamulayay clearing house-ka waana inoo diyaar howlwadeennada xafiiska ka howlgelayaana runtii horaan usoo tababarnay oo Djibouti baan usoo tababarnay sida ugu dhaqsaha badanna waa u furanaa waana u hirgelinaynaa runtii waxaan kusoo gebagabaynayaa sheekh maxamed cali dhadha halka kelmadda inaga yidhi oo ka mid ah shareeca boorka bank IBS bankiga dhexe sida xeerkiisu sheegayo central shareeca board in la sameeyo ayuu jidaynayaa insha allah muddaba waxaanu soo waday la tashiga sidii loo samayn lahaa central shareeca board si aynu u ilaalino bangiyadeenna oo nidaamka islaamiga ah ku dhaqma bankiga dhexe supervisionka isagaa leh bangiyada supervisionka waxaa ka mid ah shareeca supervision shareeca auditing nidaamka islaamiga aynu qaadanay bangiyadu sidii lagu talagalay ma ku socdaa sheekh maxamed cali galle iyo sheekh maxamed cumar dir iyo culimadeena kalaba
gudidii muraaqabada lahayd mar hore ka soo wadnaa Sheekh Maxamed sida ugu dhaqsaha badan baan u hirgelinaynaa si aynu طريقة قادناي الشروع اللي ندرك بيها الأجديريان أي نقطة إن نسيت أوصل حسنا يقول قانون طلبات إن يسوق إنه نظامية ذا برودكتس كالدول إسلامية الدركين الجوهر مريكرو وأي نبينا بعون راعينا أي كالدول إنه إسلام كل شيء طريقية بدن ولقوا ما الجري خرو تذكر يتذكر سيبركات الله في اليوم شروع دين الله طبقا هي ضروري نقطي إن ستر الشريعة بورك الله السماوية إن شاء الله تعالى سنقول أحسن الله وصغيرنا وأسكحل التنبيل هذه بان يدكم هذه الرياء وأسود من IBS بانك مدحديثة إن شاء الله أنا وحنو هل كفل القادم وحين الله أهداننا مفضلينه قدامي بك الشقدي بلا بيان وحيكم بلاي نساء وحيتها وبرعاه حركة ويا لا بقيادها ديار قانونها إن شاء الله تعالى سيأي هوشو الصوص أحسن أيوب تان حبسوك بكبيرية أنا قلتي هذا الحين هي قراها وابتدى وقراها وكيل الله نهرب سؤال سحيين حركي عايز وما تلا سحيين تابعنا هي الوحوي هذه بقيادة أي كم بقية مع الجريد حركي عايز كنا واستحسية هاي لابد يقولوا سؤال سحيين تاسينا وحي كل يريد إنه تمال قش كستا الصومالي لا يوصل يرتدوا والله ما كشطوا تاسينا وقولها إمكانية الشرعيات سلوا وسي صعبة ما قش يقول بقية لو يرتدان إن ما كليان اللي يرادا يو كنعستها يقرأ كوا أديان بمهزتي وتعرف